Assalaamu calaykum daawade. Halkan waa xogta qarsoon. Maantana waxaynu ka hadli doonaa xaaladda dalka Itoobiya. Qalalaasaha Tigray. Qaramada Midoobay oo cadaab ku tilmaamtay xaaladda gobolkaas. Itoobiya oo beenisay eedeynta Mareykanka uu soo jeediyay. Xaaladda guud ee dalkaas ayaan muuqaalkan kaga hadli doonaa. Haddii ay tahay markii ugu horeysay uu channelka ku soo gaaro, waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like gareyso. Sidoo kale asxaabtaada aad share u dhahdo channelka aad ku soo biirto. Halkan waa xogta qarsoon. Aniguna waxaan ahay Yaxye Maxamuud. Hagaag daawade. Xaaladda gobolka Itoobiya ama dalka Itoobiya ayaa kacsan sabab la xiriirta dagaalka u dhexeeya Tigray iyo ciidamada federaalka Itoobiya. Dagaalkan oo loo tiir leeyahay ayaa weli waxa uu sii muuqata in marka ka dambaysa uu ka sii darayo. ciidamada Tigray waxay galeen qaar ka mid ah gobolada kale sida gobolka Amxaarada oo qayb ka mid ah ay galeen 40 qayb ay ka gubeen sida hore ayna xogaheena ugu soo gudbinay. balse xaaladdu marka ka dambayso waa ay ka sii daraysaa iyadoo Itoobiyana ciidamo dheeraad ah ay ku soo daabulayso xuduudka gobolka Tigray. haddaba qaramada Midoobay ayaa qalalaasaha Tigray waxay ku tilmaamtay cadaab xaaladda gobolkaasna mid ka sii daraysa. xogayaha guud ee qaramada Midoobay ayaa mar kale ku baaqay in xabad joojin degdeg ah laga dhaqan geliyo gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya, halkaas oo ciidamada dawladda iyo fallaagada gooni uga sodka Tigray-ga ay ku dagaalamayeen tan bishii November ee sanadkii hore. Antonio Guterres ayaa xaaladda ka jirta gobolkaas Tigray-ga ku tilmaamay cadaab, waxaana uu sheegay in hay'adaha samafalka ay u baahan yihiin in shuruud la'aan loo ogolaado in gobolkaas ay ka howlgalaan. wuxuu cambaareeyay tacdiyada dhanka galmada ee loo geysto dumarka gobolkaas. Guterres oo wariyaasha kula hadlayay magaalada New York ayaa sheegay in awoodda military marnaba lagu xallin karin colaadda gobolkaas ee ku fiday gobolada dariska ah. malaayiin qof ayaa colaadda dalkaas ku barakacay, halka boqolaal kun oo kalena ay wajahayaan macluul. hadalka Guterres ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ee militariga dalka Itoobiya xulufadooda ku eedeysay kufsi aad u baasan oo dumar loogu geystay gobolka Tigray. Amnesty International ayaa waxay sheegtay in ciidamada dawladda ay arrintaasi ka dhigteen xeelad cusub oo ay u adeegsadaan dagaalka. hay-addani waxay sheegtay in tacdiyada ka dhacay waqooyiga dalkaas 9 bilood ee uu dagaalka socdo ay la mid yihiin dambiyo dagaal. Amnesty waxay sheegtay inay haysto cadeymo waaweyn oo muujinaya in xadgudubyada galmo ay joogto ay ahaayeen tan iyo maalmihii ugu horeeyay ee dagaalku bilowday. colaadda Itoobiya ayaa horaantii bishan yeelatay waji cusub kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ugu baaqay shacabka inay ku biiraan militariga si ay ula dagaalamaan xoogagga Tigray-ga. waxaana sidoo kale ciidamada Tigray-ga ku eedeeyay inay qoranayaan caruur askartooda ka mid noqonaya inay dumarka kufsadaan inay hor istaagaan gargaarada bini'aadanimo. TPLF oo dawladdu ay aqoonsatay urur argagixiso balse iyadu sheeganaysa inay tahay dawladda rasmiga ee gobolka Tigray ayaa dawladda dhexe ku eedeysay inay adeegsanayso hadallo sun ah oo ka dhan ah dadka gobolkaas ayna mas'uul ka tahay xayiraado dhanka gargaarka bini'aadanimo. sidoo kale hoggaanka jabhadda TPLF iyo OLN ayaa shaaca ka qaaday inay ku heshiiyeen in isbahaysi midaysan ay ka sameystaan si ay ula dagaalamaan dawladda Abiy Ahmed ee hogaamiyay Itoobiya. hogaamiyaha ciidamada jabhadda OLF garabka Shan Kumaza Tadeba oo wakaaladda wararka ee waramay hoggaanka TPLF Debretsion Gebremichael oo waramay wakaaladda wararka ee Reuters waxay sheegeen in labadaas jabhadood ay ku heshiiyeen inay mideeyaan dagaalka ay dawladda Itoobiya kula jiraan. dawladda Itoobiya waxay marar badan sheegi jirtay in labadaas jabhadood ay yihiin kuwa halis ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka, xiriirna uu ka dhaxeeyo. baarlamaankan Itoobiya ayaa muddo bil ka hor labadaas jabhadood oo aqoonsaday inay yihiin urur argagixiso. jabhadda OLN oo ka dagaalanta galbeedkii koonfurta deegaanka Oromiya waxay dawladda Itoobiya ku eedeynaysaa inay ka dambeysay weerarada isirbeegsiga ee ka dhaca galbeedka dalkaas, waxaana heshiiska labada dhinac ay ka dhigan tahay in colaadda dalkaas ay yeelatay waji kale. dawladda Itoobiyana waxay beenisay eedeynta Mareykanka uu soo jeediyay in gargaarada ay hor istaagtay. dawladda Itoobiya ayaa beenisay eedeynta Mareykanka in dawladdaas ay hor taagan tahay gargaar bini'aadanimo loogu talagalay dadka tabaalaysan ee colaaddu ku saameysay gobolka Tigray. hay-adda horumarinta caalamiga ee Mareykanka ayaa dawladda Itoobiya ku eedeysay inay sabab u tahay gargaar la'aanta ka jirta gobolka Tigray. USAID ayaa dawladda Itoobiya ku eedeysay inay hor istaagtay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa gobolka Tigray-ga. hay-addan ayaa ka digtay in cunnada gargaarka ay go'i doonto dhammaan gobolkaas isbuucan. boqolaal kun oo qof ayaa halis ugu jira macluul xilli uu dagaal qaraar dhex marayo ciidamada dawladda iyo kuwa fallaagada TPLF. ha yeeshee dawladda Itoobiya ayaa beenisay inay si walakaca ugu hor istaagtay gargaar bini'aadanimo oo loogu talagalay dadka ka tabaalaysan ee gobolkaas ku nool. afhayeenka ra'iisul wasaare Abiy ayaa saxaafadda u sheegtay in dawladdiisu ay markasta baabuurta sida gargaarku
u ogolaanayso inay galaan gobolkaas Tigray balse arrimaha nabadgelyada ay tahay ahmiyadda koowaad oo aan gorgortan laga geli karin. Biliana Zioma ayaa tiri waa meel aysan xasilooni ka jirin, sidaa daraaddeed waxaa jiraya baaritaano iyo habraacyo joogto ah iyo hadalkeeda raacisay. Madaxa hay'adda USAID Samantha Power ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in qulqulka gargaarka bini'aadanimo ee gobolkaas ku yaal waqooyiga Itoobiya uu yahay mid aad u liita. Waxay sheegtay in baqaarada raashinka ay gebi ahaanba maran yihiin, sidaa darteed shaqaalaha gargaarka ay dhowaan waayi doonaan gargaar ay qaybiyaan. Cunayaraantaas ma aanin cuntada aan la heli karin, balse sababtu ay dowladda Itoobiya oo hortaagan gargaarka bini'aadanimo iyo howlwadeennada gargaarka oo ay ku jiraan kolonyada baabuurta ee dhulka maraya iyo kuwa hawadaba ayay tiri Samantha Power. USAID ayaa ugu baaqday dowladda Itoobiya inay si degdeg ah u ogolaato in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo gobolkaas. Waxay sheegtay in baabuurta sida gargaarka aysan ka bixi karin magaalada Sumeer ee gobolka Canfarta oo hadda ah wadada kaliya ee dhanka dhulka loo mari karo gobolka Tigray. Qaramada Midoobay ayayna BBC-da u sheegtay in ka badan 100 baabuurta xamuulka oo sida gargaar ay ku xiriiran yihiin wadadaas. Afayeen u hadlay Qaramada Midoobay ayaa BBC-da u sheegay in qiyaastii 100 baabuur oo gargaar loogu baahan yahay gobolkaas maalin kasta, haddase 320 baabuur oo kaliya lagu guuleystay inay gargaar geeyaan gobolkaas tan iyo dhammaadkii bishii Juun ee sanadkan. Ugu yaraan 2 hay'adood oo kuwa samafalka oo muhiim ah ayaa mar hore cunadii ka dhamaaday yiri Xavier Apero oo ka tirsan xafiiska arrimaha bini'aadanimada ee Qaramada Midoobay haddii aan la helin gargaar cunno degdeg ah oo aan la carqaladeyn waxaa jiri doonta khatar ku soo fool nolosha in ka badan 400 kun oo qof oo ku nool gobolka Tigray oo durba ay ka jirto xaalad macluul in ka badan 1.8 milyan oo qof oo hadda ku jira xaalad adag oo dhanka gaajada oo suurtagal noqon karta in gaajo ay u dhintaan. iyo Xavier Apero tiri colaadda gobolka Tigray ayaa bilaabatay bishii November ee sanadkii tagay kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku bixiyay in ciidamada weerar ku qaadaan maamulka Tigray sabab la xiriira weerar ay ciidamada maamulkaas ku qaadeen saldhig military oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda dhexe. Dowladda Itoobiya ayaa fallaagada TPLF u aqoonsatay urur argagixiso, waxaana ay sheegtay in ay weli yihiin dowladda sharciga ee gobolka Tigray waa TPLF. Hagaag daawadayaal guud ahaan muuqaalkeeni maanta waa naga intaas nabadgelyo.